السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waa mar kale iyo war iyo dheeraad warka ugu weyn caawa waxa weeyaan waddanka UK xisbiga talada haya ee Labourka oo isagu shirweynihii sanadkan 2025 uu kaga socdo magaalada Liverpool ayaa si xoog leh waxaa ra'iisul wasaare Keir Starmer uu ugu dhaleeceeyay qorshaha uu maagan yahay hogaamiyaha mucaaradka ee isagu hogaamiye xisbiga Reform ee Nigel Farage in uu doonayo hadduu xukunka qabsado xisbigiisu isaguna uu ra'iisul wasaare noqdo in uu dhammaanba tarxiili doono waddankana ka saari doono dadka haysta leave to remain amaba dhalashada deganaanshaha rasmiga ah waxa uu sheegay Keir Starmer in arrintaasu ay tahay arrin cawaaqib xumo ballaaran laga qaadayo Keir Starmer ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday sida aanay suurtagal u ahayn in dhammaanba dadka sharciga ku jooga waddankan UK ee dhalashooyinka rasmiga ah haysta dalka laga saaro waxa uu sheegay marka laga soo tago qorshe dhaqaale xumo oo ay arrintaasu keenayso in ay haddana badayso waddanka UK inuu noqdo waddan silicsan oo daciif ah wariyayaal ku soo xumay markii uu dhaleecaynta sameeyey Keir Starmer ayaa waxa ay sheegeen amaba ay weydiiyeen su'aalo aad iyo aad u adag su'aalaha la weydiiyo waxa ay tahay adigu maxaad kaga soo horjeestaa arrintaas Starmer waxa uu yidhi waxaan kaga soo horjeedaa bilowga horeba waa siyaasad cunsurinimo salka ku haysa mana ahan buu yidhi in waxaas qalbidilka ah lala yimaado Keir Starmer ayaa waxa uu sheegay in dadku doonayaan in ay u codeeyaan cid ay ku kalsoonaan karaan ciddaasina ma ahan buu yidhi xisbiga Reform oo muujiyey amaba ku dhaqma cunsuriyad aad iyo aad u xooggan waxa kale oo uu sheegay in aanay wax isbeddela waddanka UK ku keeni doonin siyaasadda noocaasa oo cunsuriyadda salka ku haysa oo ah in dadka waddanka laga saaro iyagoo sharci ku degan laakiin ay keenayso oo keliya caro iyo xumaan waddankana sharaftiisa ay meel uga dhacayso Keir Starmer ayaa arrintaas waxaa la qaba wasiiro badan iyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo xisbiga Labourka intooda badan ka soo jeeda waxa kale oo iyagana la qaba kuwa ka soo jeeda xisbiga kale ee mucaaradka ah ee Liberal Democrats hase ahaatee lama oga doorashooyinka soo socda cidda ku guulaysan doonto Shabana Mahmood oo iyadu ah wasiiradda arrimaha gudaha ee waddankan UK ayaa waxay ku howlan tahay inay wax weyn ka beddesho sharciga muhaajiriinta aadna ay u adkayso shuruucda u saamaxaysa dadka muhaajiriinta ah ee waddankan soo gala in ay codsadaan inay waddanka deganaansho ka helaan Shabana ayaa waxyaabaha ay aadka iminka ugu howlantaha waxaa ka mid ah joojinta dadka waddankan UK imaanaya oo doomaha ku imaanaya Shabana oo arrintan ka hadasha waxa ay sheegtay waxaanu annagu u baahannahay muhaajiriin si sharci ah waddanka ku soo gala ee uma baahnin muhaajiriin iska soo yaacda oo sharci darro waddankan ku soo gala waxa kale oo ay tidhi waddankan waa la soo dhowaynayaa ciddii si sharci ah ku timaada waxa kale oo ay sheegtay oo tallaabooyinka ugu waaweyn oo Shabana Mahmood oo ah wasiiradda arrimaha gudaha ay iminka ku dhaqaaqayso ay tahay in la adkayn doono bixinta sharciga leave to remain afka ingiriisiga lagu yiraahdo oo macnaheedu yahay qofka marka loo ogolaado in uu waddanka si rasmi ah u deganaado sharcigaas waxay tiri hadda kadib si sahal laysagama qaadan doono qofka intaan la siinin sharciga waa in uu muujiyaa in uu canshuur bixinayo waddankaanna wax wanaagsan ku soo kordhinayo
dhammaan bulshada ballaaran ee dalka UK ku noolna uu noqonayo qof u wanaagsan oo ay faa'iide ka helaan. Laakiin sharci dambe la iska siin maayo bay tiri qof yimid kadibna dhammaystay dhowrkii sano ee la rabay in la joogo. Shabana Maxamuud oo iyadu ah wasiiradda arrimaha gudaha ayaa kol dhoweydba sidii loogu dhiibay jagadan waxa ay isbeddel ku haysay sharciga soo galootiga. Shabana ayaa xitaa dhowr isbuuc ka hor waxa ay la kulantay 5 waddan oo kale oo ay gacan saar leeyihiin waddanka UK kuwaasoo ka codsatay inay si quman oo xooggan isaga kaashadaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee soo yaacaysa. waxaad naga daawanaysaan waxa weeyaan telefishinka cusub ee isir telefishin. madaxweyne trumpka waddanka maraykanka ayaa isaguna waxa uu sheegay in heshiis laga gaadhay arrintii laalnayd oo laga shakiga qabay qaabka ay u dhici doonto iyo sida ay noqon doonto ee tiktok ku saabsaneed. aaladda tiktok oo iminka ah aaladda ugu xooga badan oo ay isticmaalaan dhammaanba dadweynaha caalamka iyo weliba ganacsatada doonaya inay ganacsigooda faafsadaan ama wax ku iibsadaan ayaa trump waxa uu sheegay iminka in lasoo afjaray oo laga gaaray heshiiska aad umaan u faahfaahin. laakiin donald trump ayaa waxa uu sheegay in aaladda tiktok iyo waddanka maraykanka iminka heshiiskoodu uu dhammaaday oo hoosta laga xariiqay. waxaana uu sheegay in heshiiskani uu yahay mid xitaa farxad gelinaya madaxweynaha shiinaha Xi Jinping. khamiistii lasoo dhaafay ayaa trump waxa uu saxiixay heshiis caddaynaya qaabka iyo qodobada laga rabo tiktok in ay ka soo dhalaasho. tiktok oo ay leeyihiin shirkad la yidhaahdo ByteDance waddanka Chinahana laga leeyahay ayaa markeedii hore waxaa la joojinayay in tiktok laga isticmaalo waddanka maraykanka. sidoo kale dalal kale oo caalamka ka tirsan ayaa iminkaba tiktok soo xiray oo diiday in waddamadooda laga isticmaalo. laakiin donald trump ayaa xukunka markuu yimid waxa uu fasaxay tiktok. tiktok ayaa waddanka maraykanka lagu qiimeeyaa in ay ka soo gasho 14 bilyan oo dollarka maraykanka ah una dhiganta 10 bilyan iyo 500 milyan oo lacagta ingiriiska ah ee sterlinka la yidhaahdo. haddaanu dib ugu noqonno sababihii markii hore iyo dowladdii hore ay u joojinayso tiktok ayaa waxa ay tahay in shirkadda iskale tiktok ee ByteDance ay xiriir la leedahay amaba ayba ka soo jeedo dowladda shiinaha sidaa la ajligeedna ay maraykanku aad uga cabsi qabeen in securityka amaba amnigooda qaranka ay halkaasi faraha ka baxdo sirta amniga qaranka ee maraykankana ay gacanta u gasho shiinaha. tiktok ayaa waxaa isticmaala 170 milyan dad lagu qiyaasay oo waddanka maraykanka ku nool. dhanka kale iyo wararka dhinaca teknolojiyadda ayaa iyagana hadda u laabanaynaa. ninkii ugu horreeyey ee maskaxdiisa la geliyo jib ku shaqeeya wireless iyo internet jibkaas oo ay soo saaray ninka la yidhaahdo jibkaas oo isagu magaciisu ahaa neuroscience shirkadda la yidhaahdo ay soo saartay oo uu leeyahay elon musk oo ah ninka ugu hantida badan iminka iskalena hay-addii twitter la oran jiray ama bartii bulshaha ee twitter oo iminka x loo bixiyey ayaa waanta wuxuu ka hadlay 18 bilood ka bacdi ama sanad iyo bar kadib sidii ay noloshiisa u saamaysay jibkaas maskaxda kaga jira. ninkan ayaa waxa uu sheegay in uu iminka u fikerayo si caadiya weliba xawli sare ku socda. waxa uu sheegay inuu yeeshay dabeecadihii oo robotka.
nolan oo ah ninka jubka la geliyey sanad iyo bar ka hor waxa uu sheegay in markii jubka la gelinayay noloshiisu ay baaba ahayd wax rajaana aanu lahayn misna uu ku dhaawacmay uu dabaalanayay sanadkii 2016 intaa wixii ka sokeeyey ilaa iyo inta jubka la gelinayana uu ahaa nin paralyze ah oo aan dhaqaaqi karaynin shubkan ayaa haddii tijaabooyinka oo dhan uu ku guulaysto waxa ay noqonaysaa in caalamka si caadiya laga isticmaalo kreditka iyo ammaantana waxaa qaadanaya shirkadda neuroscience oo uu leeyahay elon musk caawa qodobadii warka ugu doorka roonaa waan idiin soo gudbinayay waa naga intaa tan iyo habeen kale intaanu hawada ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo nooli kulanti